السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسكينتي أحمد هيد أنا يدها سواني سلامي دمانتينا ما أنت ناكتي إن أحمد هيد ميك اب إسكسو جديد أو جديد وحواي حالة برام برواي إنقصتو ميك اب وإلا بي مرة رأي قدام بيس آمر صدو ميك اب ما أنت لنا كده سأقول فعلا سميها كلية سمي سواء أقول بأن ميك اب بروفيشنال ما إهين لكن تنطع برتي because أنا بدنا عملها أو معرفتي مدقي أو معرفتي سالونا ذا يوحس لولوين ما دام أنا تجنين وح بدنا تقول كلفت إنا عبرته سواء أنا جالس أسكوب جري ما نربي إلا سالون مو عرين كتير وقالوا جامد قلي وحبات أركي كلستا وحكستا وضاهي لكن هاد قرقا قادو جوكت جود دقناس كي مرساني أديك فونديشن كات أتعيشها وكلر كاغا مرسكرتا أنا مرة ورا مركا بدنا ميك اب كي أنا اللي مرسدو جدي زمان أنا أسكو إكا مجدا سالونا ذا قارب كاتيتي بسم الله سان يسان على قاسو ديغا مركا ديبا واركاش شرع واركاش شر على كل حال مركا وقت انتي أفرت حبان إلا بنو ما أنت رفاتك أمر أذنك إله وما بلغش شيء كرو waxaan u socday xalfad oo gabar walaashay oo sameeysanayso maxaa ku raadahay fashion show oo ka dhacayso sliye ka dhacaysa xalfadaas iyada gabar dharka oo iibisa waa dumarka marka xalfaday sameeysan oo saas tartiib ayaan rabaa inaan ugu tago insha Allah saas tartiib make up marsad moogiya anoo ay ogtii make up la'aan dhacni soo fadhiisi jiray maanta horta aad baan u faraxsanahay waxa u faraxsanahay waxa waaye ilaahay ka sugo adinka dartiina YouTube kaygu wuxuu ii gaaray 300 waxa la ii gaaray maanta wuxuu maraya 300 iyo koow marka insha Allah waxa waaye ina ila maxaa la dhijir ila dabaaldegtiin waa dabaaldegaa ku jira ma fahanteen aad baad u mahadsantihiin qof walba oo YouTube kayga subscribe gareeyay ama asaga dartiisa dad aan ku helay inuu ii subscribe gareeyaan waxaan leeyahay waa mahadsan tahay waxaan rajeynayaa 300 maahane 1 milyan inaan gaaro 1 milyan ka badan xitaa inaan gaaro sababtoo ah Soomaali 1 milyan waa ka badan tahay Soomaali 1 milyan waa ka badan tahay laakiin anoo dhahin qaar way xastaayaan waxa dhici karta qofka inuu fiidiyowga intuu arko oo si yar fudud oo yar daawado iskaga baxo asagoo yani subscribe iyo xasba fiiriyo niyadiisana waxaas gelin waxa dhici karta qofka asagoo iska harakeysan inuu fiidiyowga iska gudbo marka ma dhihi kari xaasnimo jirto oo dadkaas maxay subscribe gareeyay waaye dadna waliba inay arkina laga yaabo because every day qof baa ku subscribe gareynaya qof baa kugu cusub qof baa waligiisba YouTube ka aan leeyahay katinka waa dhiba xad ay waligiisba ay maxaan ku raay YouTube kayga arkina laga yaabo inuu maanta arkay oo ku soo biiray qofkii cusub waxaan leeyahay horta welcome qofkii joogana waxaan leeyahay zaid oo mahadsantahay aad iyo aad oo mahadsantahay maanta dabaaldeg waxaan ku jiraa waa aragtaan maxaan ku raadaa YouTube kayga dadka qaar xalfaday u dhigtaan laakiin aniga waxa waa video aad soo duba xalfad iyo because waxyaabaha qaar in laga badbadiyo waa laga fiican yahay maanta haddii aan xalfad u dhigto subscribe dad ayaa lacagtiis u baahan oo masaakiin ah inaa siisada ka fiican inta dhiileed Instagram loo dhiganayo oo shil laga helaynin Instagram waxa ugu dabaaldego meesha ma taalabo waxa ugu dabaaldega thanks inta waxa waa iigu filan laakiin in aan taa qarash oo hool tago oo lacag dhiigo oo kan aan sameeyo waa arkay dad badan gabdho badan oo u dabaaldega waxaan dhahay bismillah waa iga dabeecad badantiin aan dhahay marka waa kaasaan maskiintii Axmedeed masarkan saas ayaan taan xirtaa oo ogtiin xaaladeeda maruu camalno diseenkii horta wax walba waxa waa wixii hore waxa la dhahaa fiican sababta loo dhahayo sax ah baalkan diseenka wuxuu ahaa shaasaskii ayayooyinkan xiri jireen googaraha diracyada lagu xirtay ayayooyinkan xiri jir Soomaa haddana anaga xirano marka wax walba wixii hore ah fiican all this gold markii laay waa wax fiican ahaayeen waa sax ahayd marka maanta mawduuca kale aan soo fadhiistay markii laga soo tago hambaliyada YouTube kayga sidaas qurux badan ay subscribe gareyseen haddana waxa idin wadaa ilaahay kasko inaan idin mahad celiyo horta aad baad ugu mahadsantihiin fiidiyowga ugu dambeeya soo duubay wuxuu ahaa fiidiyow ka hadlaya arinta iyada ahayd marka fiidiyowgaas wallahi dad badan baa caadi soo wacay dad badan baa maxaan ku raay ila soo hadlay adinka committee-gina waa arkay badankiisa waa dad ii duceynaayo
dad maxaan ku rahdaa ii sheer dad sheer gareeyay ayaa jiro waxaa jiro dad ii sheer gareeyaa jiro oo fiidiyooyinka meelo badan aan ku arkay youtubero soo gashtaa arkay intaasoo dhan horta waa idinkaga mahad celinaya because wax waaye waxaa idin dhahay ii gaarsiiyey qofkii ereygaas iisoo dhahay laakiin waxaa maskaxdeyda ka maqnaay ayaan rabaa maanta inaan idiin sheego maanta maskaxdeyda waxa ka maqnaay ayaan rabaa inaan idiin sheego waxa ka maqnaay maskaxdeyda ayaa jirto oo walaashay iga yar iisoo sheegtay raali noqdaya raali noqda mar kaamirada baasha ay qabaan walaashay iga yar ayaa ii sheegtay waxay ugu tiri qofka aa leedahay la gaarsiiyo inaa iska cafiso dadka fiican because qofkaas inuu dhintay ayaa laga yaabaa waana run qofkii inuu nool yahay allahu yaclam ma ogaa kari shalay isliyaa tegay shalay markaa islii tegay suuqa anoo joogay ilaahay markiis waxaan meel dharka iibsanaya waxaa lagu yiraahday wiil ayaa 3 beri qol ku jira 4 beri amalayna allahu naxariista qol ku jira meedu ahaa qof ogeed ma laha wax waaye waaba qarxi lahaa la yiraahday maanta la soo saari lahayn marka wallaahi waa naxay arrinkaas waa hee kana qofkaasna ayaa naxariisto soo wada duceey ilaahay oo naxariisto soo wada niyada wada dhaxta qoraal muhiim ma aha muhiimad waa niyada ma fahanteen marka waxa waa qof walba maalin daqiiqad ku dhiman kara daqiiqad maxaa waa second ku dhiman kara maanta anoo idin la hadlayo dhiman kara ma fahanteen maanta anoo idin la hadlayo ayaa dhiman kara marka waxa waaye wixii tiri walaashay qofkaas waxa laga yaabaa inuu dhintay oo maanta dartaada dhibaato uu maraayo marka aniga qofkaas iyo dad kasta oo aan wax ii geystay cafis ay iga yihiin waana cafiyey haddaad nooshahay haddaad aragtay fiidiyogeyga hore haddaadan arkin haddaad cafis i weydiisata haddaada i weydiisan marka hore waxaas dhahay qofka cafis markuu kusoo weydiisto kaliya cafi bal ilaahay aan kasbadana kaamirada badhigoosay markuu qofka cafis kusoo weydiisto kaliya cafi laakiin qofka waxa laga yaabaa fiidiyogii inuusan arkin kow inuu dhintowba nooleen labo inuu maxaa ku raada uusan maanta haysan shalay awooduu haysta labo waxyaabo badan ayaa jiro marka aniga waxa waaye walaashayda hadalka tiri iyo adinkana waxaad ii soo wada qorteen ducadiina horta ilaahay ha ii aqbalo ducadiina ilaahay ha ii aqbalo oo ay ii rumeeyo qof kastoo i jecel uu ii soo duceeyey qof kastoo wanaagayga jecelna waa qofkii idahay walaashayda raali noqo midda kale waxaan kala ogaaday dhibaatada aan sheegayay inay dad life ugu dhacdaba oo dad badan ayaan arkay ii sheegeen ii soo qoreen gabdhaha Soomaaliyeed wax hore loogu sameyn jiray inay ahaayeen gabar baa wiil soo guursanaa wiilku markuu soo guursado gabadhi guriga reerkiisa uu keenayaa ama meel buu hala duga doorabo markuu ayaan yar isqabaan wariyaheede naagta maxaa ku dhacay dhalosay naagta ma dhashmiya wiilkii lama dhawooy macnaa ma dhalaysid miya maxaa idinku dhacay ma la dhahaayo ee gabadh bisa eeda laga dusha laga saaraa waa wax ay Soomaalida dhaqan u leedahay lagu dhahaa anigu waaba ilowsanaaba laakiin waa wax dhacay ee waliba aniga qofka maanta saas ugu dhahay ehelkayga maahan ehelka ninkayga ma ahana de qof aan garanayo ma aan kulli qofku doono hada ehelkayga inuu yahay taa Allah yaclam laakiin qof aan ani aqaano ama de qof ii dhow inuu yahay aniga ogahay aan aqaano ma ahayn qofkaas marka waa qofki ehelkaaga hadduu saas kugu yiraahdo waa wax aad u xanuun badan way kasii xanuun badan tahay sababtoo caafimaadka iyo xanuunka quruxda iyo foolxumada intaba ilaaha keen ma fahanteen marka waxa waaye dad badan baaba noloshaas ku dhaceen qoraal ayaa jiro aan meesha bin soo galay qoraalka commentiga qof ii soo qoray qoraalkaas wax badan aan ka dareemay wax walbana inuu ilaahay bedelo wax walba ilaahay sameyn karo marka qoraalkaas aan soo bingareeyna aad buu ii taabtay because waxa waaye gabdhaha xitaa dariskaaga markay maalinta isku marnii la aroosay ee ka hor dhasho adiga horta naaway ma dhashniya waa lagu dhaha mugti laakiin hadalkaas weligaa dambe yuu ka tegin aniga kama fakiro tan taadan kaaga hadlayo waxa kala hadlaya inaysan fiicneen ereygaas because waa lagu qori karaa adiga haddaad haysatid waa laga qaadi karaa mar dambana laguma siin karo marka aniga cafis baa iga tihiin dadkii ii soo dhaheen sidaas dadkii ii soo duceeyeen waxaan ii dhahayaa ilaahay maaragtay abaalkiina ay igu duceyseen wax ka badan inuu ilaahay idin siiyo adinkana waxaad jeceshihiin ilaahay idinkugu bishaareeyo kulligiina intii iga naxdeen waxaan leeyahay iga raali noqdo hadalkaas mar badan inaan nii sheego waa rabay inay nii soo duubo waa rabay laakiin
xoogaa waa ka xishoon jiray waa ka cabsan jiray laakiin marka dambe waxaan isdhahay qofka intaad oqdad u heleedaha kula soo hadlo laakiin aniga niyadeyda waxaa ka maqneyd inuu qofka dhiman karo inuu nooleen ayaa laga yaabaa marka walaalayaal oo aan iscafino aniga xitaa waxa laga yaabaa qof inuu maalin wax iga tabanayo inkastoona dee aan u malaynaynin qof inaan wax ku sameeyey laakiin qofkii maalin wax igu tabanayo inuu iska kii cafiyo in iswada cafiyaana way fiican tahay anigana cafis baa iga tihiin qofkii maanta dhahay qaaliya saan aheyd qofkii dhow qaaliya saasaa tahay qofkii dhahay saas matiid qof kasta oo hadal igu dhahay waa iga cafis iga tihiin anigana sidoo kale haddaa hadal xumaan iga tabanaysid ama maalin aan wax ku xanuujiyo ku dhahay cafis ayaan kaa dalbanaya walaal waana mahadsantihiin aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiina dadkii ii wada duceeyey ducadiinana ilaahay haynoo aqbalo midda kalena subscribe-kiina aad baan ugu faraxsanahay sidaad garabkeygu tihiin waa mahadsantihiin 1 jeer hadhow xalfad markaa tago inaa idiin soo duubo ayaa rabaa haddii ay ii suurto gasho insha allahu tacaala hadday suurtogeli weysana dee dhib male raaga duubooyo youtube-kiisaad ka arki karaysiin insha allahu tacaala waa idin jeclahay subscribe-ka iyo like gareynta iyo sheerta ay halaygu qabto cafis iyo masaabixna waa tihiin insha allahu tacaala thank you guys see you insha allah next time